السلام عليكم أصحابتي غالية دمانتي مeel kasta joogtaan aad baan idin salaamay walaashin maanta waxaan nii hayaa arin muhiim insha Allah oo khaasa hablaha maanta waxaan noo hayaa saliidan aad arkaysaan oo inaga caawin doonta qaabka meel walba oo jirkaaga kamid ah rabtid inaad cayliso oo kale hadii aad tahay qof dhuuban oo ma aragtay dhuubni ka cabanaya oo meelaha khaas u dhuuban sida lugaha kale gacmaha kale oo jacashay inaad yeelatid luga buto caamo buurbuuran ama gacmo buurbuuran tan ayaa ka caawin doonta insha Allah waa halka quraata oo caalamka oo dhan isku raacay maasha Allah tabarakallah diinteena ku jirta dhan walba laga eego ka caawin doonta insha Allah in ma aragtay dhuubnida faraha badan ama gacmaha aad ugu dhegsan yihiin lafta ugu dhegsan yihiin oo kale ama lugaha oo kale inaad ma aragtay haddii aad ku message garayso oo aad ku message garayso raadisana lugaha biyo diiran ku meedhid intaad marin ka hor biyo diiran markaad ku meedho kadib aad mariso aad ku message garayso muddo dhan 30 daqiiqo meelahaas walahaantii waxaad arki doontaa natiijo aad ku cajabisa waana muhiim inaad samayso toddobaad iska daba dambayso sidoo kale maalin kasta ilaa aad natiijo ka arkayso waana la isku raacay insha Allah waana ka baari kartaa internetka hadaa rabtiin run ahaantii aad bay u anfacday qofkii ma garanaysaa u baahan raba inuu meel uu buunaado kale meel walba ha noqoto siba khaasatan gacmaha iyo lugaha marka aad bay iga caawin doontaa saliidan marka haddii aad rabtiin inaad ogaatiin waxay ka kooban tahay waxa weeyaan saliida xulbada sideen wada ognahay waa qani bay fiitamiinka ka tahay waa saliidaha ugu fiitamiinka badan ama loo isticmaalo meelaha la naaxinayo kale ama wixii baruur ah waa full protein marka insha Allah waxaan rajeynayaa tijaabisaan haddii aad rabtaan sida loo diyaarinayo ama loo isticmaalayo comment-ka ku soo qori kartaan gurigaagana waad ku dhex samaysan kartaa insha Allah sida tan waad u sameyn doontaa haddii Ilaahay qadaro waxaad soo qaadanaysaa wax caaga ama maad aragtay ama quruurad waxaad haysatid waxaad ku shubi doontaa insha Allah waxaad ku shubi doontaa xulbada budada ah kadib waxaad soo qaadanaysaa caagi baad ku shubaysaa saad u aragtaan baa ku jirta hoosta fadhida saliidina oo ku dul daray saliid walbana ma isticmaali kartid saliidda isticmaalaysid waa inay ahaataa olive asliga waayo saliidda olive wax walba lagu daro way qaadataa faa'iidadeedana way leedahay marka waxaad sameynaysaa waad ku shubaysaa marka ugu horeysa guntaad u dhigaysaa kadib baad saliidda ku shubaysaa kadib daboolkaad ku adkeynaysaa waad ku luxaysaa waad dhigaysaa muddo isbuuca oo maalin walba aad luxaysid ilaa aad ka aragtay in saliiddu cuslaatay aad moodo inay jiidanayso oo aad aragtay inay saliiddu isbedeshay oo xulbadina ka soo urayso kolley waan ogahay inay aad u qalmoon tahay laakiin natiijada aad uga baahan tahay ka muhiimsan waxa la yiri quruxan xanuun lahayn ma jirto soo maaha marka hablo waxaan leeyahay insha Allah tijaabiya saasani ku soo baxaysa saad u aragtaan oo kale imika way cuslaatay marka saa loo weeciyo kale waxaad moodaa inay ka adag tahay saliidii kale marka saliidaas isticmaali doontaan waxaana laga horeysiin doonaa sida tan insha Allah in aad ma aragtay lugihii ama meeshii aad marinayso meeshay doonto ha ahaato aad intaa ka hor aad ku soo radin doonto biyo diiran markaad ku soo radisid oo aad ku soo maydhid kadib aad ku message gareyn doonto ma marin doontid waad ku message gareyn kartaa haddii ay lugaha kala tahay midoo kale oo ma aragtay luga dhuudhuuban ka cabanaysid sidoo kale waxaad sameyn doontaa insha Allah inaad soo radiso biyaha diiran waxay ka caawin doonaan in uu jirkii furfurmo oo ma aragtay aanu sida u adkaanin kadib maxaad u fududeynaysaa in ay saliidii jirkii dhex gali karto saliidana waxa weeyaan saliid protein miirana ama ma aragtay faadka kale waxay baruur oo miiran ka caawin kartaa marka waxaad sameynaysaa kadib message baad ku message gareynaysaa adigoo gacmihiisa sidii wax kusoo jiidayo kale oo ma aragtay sidii hilibkii oo kale soo yara jiidaya ama ku message gareynaya haddii aad tahay dadka lagu haysta sare waaweyn inta hoos oo yaryar hilibkaaga soo dejin kartaa hoos baad ugu soo duugi kartaa
waana arki doontaan insha Allah natiijada waxaan rajaynayaa insha Allah inaad tijaabisaan oo soo eegtaan natiijadana waad arki doontaan muddo bila toddobaad baad ku tijaabinaysaan oo maalin walba ah oo 30 minir aad isticmaalaysaan biyahana aad maad aragtay waxoogay ku soo radinaysaan lugaha kadib 30 minir aad ku massage gareyn karto intaad ama wajiga wax iska yarmarsato ama maaragtay waxaad kala qabanaysid marka waa inaad u fariisato weeyaan oo aad marsato insha Allah dhamaantiin meel kastoo joogtaan aad baan idin salaamayaa insha Allah naga soo share gareeya waxa taqaanaan wixii noo faa'iido ah hablaha dhammaan aad baan